jeclo dadka masaakiinta ma garanaysa wax waliba dad reer miyi ay u badnaayeen dadka habar jeclada ka dhimanaya habar jeclada dadka inta badan dad dagaal yaqaanana maaha dad hub haystana maaha dad tababaran oo ciidan iyo khibrad lena maaha waa dad iska reer miyi oo masaakiina wey laakiin ciidamadii maanta meesha ku dhamaaday waa ciidamadii Muuse Bixi oo Itoobiya ku soo tababaray wey waxana Muuse arintan u dhigay iyo jambalkan soo doorashada iyo kursiga ugu sii joogo doorashada masaakiinta garxajiska siidhiga la wareegaya ee aan waxba ogeyn siidhiga uun afuufaya sidoo ugu dhaho wax doorashaan qabanaya ma jirto wey waxa dhintay 82 nin baa ka dhintay 14 waa beesha habar awal beesha Sacad Muuse ka wada 23 waa beesha habar jeclo 12 waa beesha garxajis 4 nin waa beesha Samaroon 8 nin waa beesha Ciise 12 nin waa beesha Arab waa rag noocaas wey waxana la dagaalamay oo waxa saa u galaya haddaan fiidiyada dalka ka tusaya waxa saa wax u galaya waa 2 wiil oo Khaalida iyo 25 wiil oo reer Hagara iyo 12 wiil cali gariya iyo beeshii dir waqooyi wixii sheegan jiray la soo wada aruuriyay ma meesha ku dagaalamaya ciidamada SSC og bay ninkan maladii ka diray bas ladii kama dirin war ninkan waa bas ninkan war ninkan iska daayay dilaanay maxaa wax dilo horta dad wax iska celinayo oo kula dagaalamayo iska ka dhicinaya ba wax dila isaaq haday naf leeyihiin oo wax tari kara maanta yaana TikTok ka qayline waa nimankii shalay ragooda aan xaraystay oo aanay ka hadli karin way waragii aan shalay xasuuqay oo 800 nin ka dilay oo maanta deegaamadoodii aan cagafta galiyay oo dhulkoodii aan gubay oo maanta qorilugud aan gubay oo buqdarkeen aan ka qaaday oo boolay aan ka qaaday oo ceel afweyn aan dul fadhiyo oo ceergaaba aan ka macnii ka barakiciyay oo ma saa aan u galay ma dadka masaakiinta wax dili kara واي مودقل مركب مودقل عدايمي بان شدايا عدايمي بان شدايا يا جوابيا عدايمي بان شدايا انا قاعد تيك توك انا قاعد حريقه warmaya waxa shidaya taliye ciidanka Soomaaliland oo ka hadlaya in